sababta uu madaxweynuhu uga reebay madaxweynuhu isaga og laakiinse waxaan filayaa inta aan anagu ka warhayo inay tahay Faysal waxa la kala garan kari waayay Faysal ma wafdiga Soomaaliland buu ka soo jeedaa mise wafdiga kale ee koonfurta nimanka la yiraahdo Soomaaliya ayuu ka soo jeedaa ayaa la kala garan kari waayay waxa cadayno ma wax beena iyo wax ku turkuteena way iga hadhay waxa cadaymo badan baan u keenay waxaan cadayn u keenayaa inuu qaynal wadan Faysal aan ku keenay cadaynta kooban wafdigii u dambeeyay aan Turkiga ku galay wada hadaladii waxa markii la wada hadlay xubnaha nabadkoodu way joogeen marag bay ka yihiin waxa markii la wada hadlay lagu heshiiyay in labada madaxweyne ay saxeexaan wixii ka soo baxay toddobadii qodob ka soo baxay labadii guddiye wada hadlayay waxa xubintii koobaad ee jabisa ee yiraahdo wasiiradu ha saxeexaan oo yaan madaxweynuhu saxeex isagoo loobi nagu jiray qoladii koonfurta marka meesha mareysay dawladda Muqdisho isagoo ugu jiray loobi ayuu mar walba lahaa cadaan bay way ka timi safarkii London ee ku horeeyay waanagii ku wada hadalay Jabalin House markii laga soo noqday waxa marag ma doono xubnuhu ka wada warayay habeenkii markaan ka soo noqonay wuxuu la qaatay kulankii iyo xafladii dadkii waxa weeyaan reer Soomaaliya ay ku qabsadeen London ayuu la qaatay oo la fadhiistay oo kala qayb galay oo la xafladaysanay anana waxaan la xafladaysanay reer Soomaaliland wuxuu asraartii iyo wada hadaladii mar walba u gudbinay shalayna hadalkiisa ka muuqatay inuu lahaa xamar baa la iga soo sheegay nimankii reer xamar ee aan wada hadlaynay isagoo iswanaajinayo yada ana qadiyada difaacaya waxaan muujinayaa inaanu qadiyada difaacina qadiyada Soomaaliland uu lugooyo ku yahay marka laga tago tishuushka iyo hadalada naxliga oo saxaafada mariyo ee joogtada u ah waxa oo runtii aan taariikh qarsoon ahayn taariikhdii Soomaaliland markii halgeed ku jirtay uu dhabarka hayay inamadii uu fo waxna la xidhay waxna la laayay uu sababta u ahaa ninkii basaasay ahaa wuxuu ku faanaa inay gaan saaxiib haayeen waxa muujinaysa ahad ceebta u taqaan rag bay caadadiisa tahay inuu basaas u ahaa gaan oo ahaa dadkii ninkii xasuuqay ummadda reer Soomaaliland ee dhibta aad ogtahay u geystay mujtamac aad adag baan u tirnay Soomaaliland aad haddaan moodayana maan galan siyaasadda dadka reer Soomaaliland maan galan aanu Afrika jirmaan ka tagay Soomaaliland xamar baan ka shaqeyn jiray iyagoo cabanayeen way ma jirin walna dilay walna xukumay walna mafiiq baa lagu waxay waxba cabanayay waxa ka mid dad isjecel oo wanaagsan oo haday halgameen oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka soo badbaadiyay dagaalkii dad sida Eritrea iyo Ethiopia u dhismi doonaan noodiyay waxaanu tagay dad qabyaaladu iyo Chad aan wixii aanu dhaafsaneen sharciguna aanu agto waxba ka ahayn kii diliyay ee laga qabanayaa way ka daba imanayaan soo daba ku leeyahay waninka aad ku diliyay adoo kiiska laga inuu isku qarxinayo moogta da aan nidaamka aan jeclaan buu arkay isdaba socodka iyo protocolka aan aqoonin qaranimo aan ku jirin qaranimo oo yaqaana lowliska sharci daraanta iyo kala adkaan la'aanta iyo isbarbar socodka oo isbarbar socoma ayaa noqotay